xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo ah afayeenka aqlabiyada mudanayaasha muxaafidka ee xisbiga talada haya kulmiye waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu bilaabay ololaha uu taageero ugu raadinayo xisbiga wadani laakiin tan hadda uu bariga ka bilaabay ololuhu waxaan filayaa mid taageeradiisa oo liita oo xisbigiisa uu qiil ugu raadinayo inuu waxyaabahan jira qiil ugu raadinayo inuu tahay aanay ahayn wax kale oo ama uu tagay ama uu naqtay taageerada xisbigiisa oo liita ayuu dadkayna sarcaad sidii golahaba ugu dhigayay loogu dhigayaa in la yiraahdo wadani ba halkan maray iyo dawlad baa sidan tiriyo kana caynkan tiri anigu taa ma arkayo uma arko wax si weyn oo siirdan xildhibaan Cabdullaahi Balaaki oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay in gudoomiye Ciro wado qorshe uu ku carqaladanayo dib u dhac ku yimaada doorashada cid dib u ridaysan horeba u sheegayna waa gudoomiyaha dhinacyada kale dawladda oo cambaaraynayo xataa way ka dhamaatay waxyaabihii dawladda ku xidhnaayo dhan dawladda xaq waxa lagu lahaa inay miisaaniyada ku darto way ku dartay miisaaniyadii oo loo allocate gareeyay dawladda waxa xaq lagu lahaa inay magacaawdo commissionkii doorashooyinka oo waqtigeega ku cayman dawladdu goluhu hor yaalaayo imika ay taala dawladda waxyaabaha ku xidhan waa taa inta kale waxay ku xidhan tahay ay hor taalaada waa baarlamaanka hadii baarlamaankiiba gudoonkiisi aanu ogolayn in la isku yimaado oo aan marna uu sharci forgery gareynayo ama uu si kale u dhigayo marna uu golaha iskabgood ka sameeyay ka baxsanayo uu leeyahay dib baan u dhigay aanu waxaan qabaa inay cid dib u dhigaysa ama rabtaa horena u fadhiday ee ugu joogtay kororsiimo haddana doonaysa inay tahay hogaanka wadani oo ah gudoomiyaha golaha khilaafkii ka dhashay diiwaangelinta madaniga ee u dhaxeeyay mudanayaasha mucaaradka iyo kuwa muxaafidka ayaan wali waxa laga gaarin iyadoo shalayna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uu gudoomiye Ciro ku eedeeyay inuu qorsheynayo dib u dhac ku yimaada doorashada